بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبض داوديان مeel kasto naga daawanaysan xili kasto bayni tayba waxaad ku soo dhawaataa barnaamij gaar ah oo kaga hadli doono dhacdooyinkii ugu waaweynaa sanadka 2013 si dhamaanaya ka dhacay gobolkani Awdal. qodobka koobaad ee barnaamijkeena ku soo qaadan doona ayaa waxa uu yahay mudaharaadkii Raya TV. horaantii sanadka 2013 abaaro 8 fiidnimo ayaa waxa albaabada loo laabay isla markaana ridada loo xiray TV-ga localka ee ka shaqeeya magaalada Boorma xarunta gobolka Awdal ee Raya TV iyagoo markaas ay xidheen ciidamada ammaanka gobolka Awdal iyagoo markaas lagu eedeeyay mas'uuliyiinta TV-ga inay sii daayeen waxyaabo kicin kara shacbiga. haddaba habeenkaas oo taariikhdu ahayd 22 bishii 2013 ayaa waxa magaalada Boorma ka dhacay mudaharaad ay dhalinyaradu markaas ay ku dalbanayeen in la sii daayo TV-ga localka ee Rayo iyadoo habeenkaas ay jirtay ciyaar adag. mudaharaadkaasi habeenkaasi ka dhacay magaalada Boorma ayaa mid aan geysan khasaare isla markaana saacadii dambe uu TV-gu sidiisii hawada ugu soo noqday. qodobkeena labaad ee ku soo qaadan doono barnaamijkeena dhacdooyinka ugu waaweyn 2013 sii dhamaanaya ka dhacay gobolka Awdal ayaa waxa uu yahay bishu markay ahayd 14 bishii 2013 ayaa waxa magaalada Boorma ka dhacday xafladda xil wareejinta Badhasaab oo markaasi loo soo magacaabay gobolka Awdal mudane Cabdo Axmed Ayr iyo Axmed Xadi Sidi oo isagu ahaa Badhasaabka xilka wareejinayo iyadoo munaasabadan ay ka dhacday hotelka Aldolo ku yaala magaalada Boorma iyadoo labada Badhasaab oo xilka u kala wareejiyay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha. qodobkeena saddexaad ee barnaamijkeena ku soo qaadan doona ayaa waxa uu yahay garoonka kubadda cagta Boorma iyadoo in muddo ah ay sugayeen dhalinyarada reer Awdal in ay mar un ay helaan garoon kubadda cag oo dhameystiran ayaa waxa magaalada Boorma xarunta gobolka Awdal sanadkan la hirgeliyay garoon casri ah isla markaana u dhameystiran yahay qalab garoonada waaweyn isagoo garoonku qaadi doona in ka badan 4000 oo qof. qodobkeena afraad ee ku soo qaadan doono barnaamijkeena dhacdooyinka ugu waaweyn ee ka dhacay gobolkani Awdal sanadkan dhamaanaya 2013 ayaa waxa uu yahay soo dhaweyntii ballaaneed ee loo sameeyay Professor Axmed Ismaaciil Samatar ee magaalada Boorma. bishu markay ahayd 5 Juun 2013 waxa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Boorma xarunta gobolka Awdal isla markaana soo dhaweyntaasi abad ay ka dhacin gobolkan Awdal loo sameeyay Professor Axmed Ismaaciil Samatar soo dhaweynta professorka ay ka qayb qaadanayeen caruur iyo ciroolaba. qodobka shanaad ay ku soo qaadan doona barnaamijkeena dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka 2013 dhamaanaya ka dhacay gobolkan Awdal waxa uu yahay booqashadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku yimiday gobolkani Awdal markii ay bishu ahayd 28 Oktoobar 2013 waxa magaalada Boorma lagu soo dhaweeyay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Dr. Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo iyagoo laga hortagay degmada Dila iyadoo ujeedada wafdigan madaxweynuhu salka ku hayay sidii ay uga qayb gali lahaayeen dafcadii 12aad ee ka qalin jebinaysa jaamacadda Camuudiya inuu xariga ka jaro mashaariic horumarineed oo laga fuliyay gobolkani Awdal gaar ahaan degmada Boorma. ka soo qayb galo xafladda tan intaas arday ka qalin jebinayaan maanta jaamacadda Camuud waa meesha aan secondary ka galay waa meesha ka baxay kisirada hore ahayd waxaa farxad weyn ah inaan iyadoo jaamacadda maanta aan imaado markii ugu horeysayna maaha xafladdii ugu horeysa ka soo qayb galayna maaha laakiin tirada intaa leeg ee maanta halkan fadhida ee tirada iyo qaalaha maalin ka weyn maan arag waxaan halkaa aan leeyahay aad iyo aad bay ii taabatay runtii khudbadii halka laga akhriyayey iyo ummadda halka isugu timid iyo sida loo soo dhaweeyey intaba waxaan leeyahay hambalyo aad u ballaaran baan maanta idinku soo jeedinayaa qalinjabinta qalinjabiseen aad digriiskii qaadateen shahaadadii universityga qaadateen maanta graduate iyo post graduate jaamacadda Camuud maanta waxay ka mid tahay jaamacadda ugu horeysa jaamacadeena maanta waa hormuud oo jaamacadda qaranka Soomaaliland oo ay ka mid tahay. hambaliyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inaad noqotaan kuwo aan lagu hungoobin ee noqdo kuwo wadankooda diintooda iyo waalidkooda anfaca. waxaan kaloo idin odhan lahaa haniyad jabina maanta markaad qalin jabisaan beriga shaqo ma helisaan laakiinse insha Allah dadaala kii waxbarasho sii kordhisanayaan inuu sii kordhiso kii kalena inuu albaab walba qaraaco. anigu shakhsiyan albaabkaygu idin furan yahay
inaan shaqaydi la raadiyo oo aanan ku eekan wasaaradda waxbarashada waayo anagu waxbaa loogi baray laakiinse shaqa raadiskii haddana diyaar baana inaad kala qayb galo qodobkeena lixaad aan ku soo qaadan doono barnaamijkeena dhacdooyinka ugu waaweyn ee 2013 sii dhamaanaya ka dhacay gobolkani Awdal ayaa wuxuu yahay qalin jabinadii ardayda jaamacadaha haddaba sanadkan dhamaanaya ee 2013 ayaa waxaa jaamacadaha ku yaala magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal ka qalin jabiyay ardayda ugu baneed ka qalin jabiya jaamacadaha gobolka markaasina taasay noqonaysaa inay aqoontii gobolka Awdal ay sii kordhayso waxay jaamacadda Camud horteeda idinku qirtay siisay ugu soo wareegisay shahaadooyinka digriyada diblomayaasha iyo certificatekiina takhasuskiina takhasusyadiina la xiriira waxay waajibaad iyo sharaf lahaayeen ummaddu idinka sugaysaa madaxweynahana ku wakiila وحي شهادوينك سيحروه ليهين ومدى كليهين ومرحوين توكيلها لذلك إني ولا نصور ما يسمى وحي الحسيسين وكلية ساكا أفرق موهين الرياض شو وريكون إلى هاي الكلية أوامر إلى هاي الكلية هذين كل وحي وكلية مكسر ولا قبيل يقرن من الموضة كلام إنتنا ولي قبله مننا ومضبر فيه منه waxay baro wax waalidkiini oo rixamaha waajib ku aha macallimiintiini iyo kulliyadii la tixraacayo qodobka 13 dastuurka dalka kaas oo ogolaanaya in jaamacada la furto jaamacadahaasina ay bixiyaan digriyada iyo takhasusaadka kalaba markii aan arkay marakicii tacliimeed iyo warbixintii natiijadii imtixaankii u dambeeyay ama finalka ahaa ee uu soo gudbiyay diiwaanhayaha guud ayna ku caddahay sida aad dhammaantiinba u fuliseen dhammaan shuruudihii loo baahnaa si laydiin siiyo digriyada iyo dibloomayinka kala duwan waxaan si sifo sharci ah idinku guddoonsiinayaa shahaadooyinka bachelarka iyo dibloomada magaca sharciga ah shahaadooyinkaasi waxaa lagu bixiyey dhammaan xuquuqda sharcigu aqoonsan yahay hambalyo qodobka toddobaad ee ku soo qaadan doono barnaamijkeenana ayaa wuxuu yahay xil wareejintii xogayaha dawladda hoose taariikhdu markay ahayd 3 Oktoobar 2013 ayaa wax xilka la kala wareegay xogayihii hore dawladda hoose mudane Maxamed Cabdi Xaashi Xamari iyo xogayaha cusub Xasan Yuusuf Fiiraash iyadoo munaasabadan ay ka dhacday hoolka dawladda hoose waxaana xilka u kala wareejiyay labadan xogaye barasaabka gobolka Awdal Cabdi Axmed Ayir وحبيتك أكيد يا سيدنا waxaan rajaynayaa in aan wax badan wax ka qaban doono kulli injineernadii dhinac kaayo jidadu waa laga hadlayaa injineernimo khibrad badan baan u leeyahay dakhli khibrad badan baan u leeyahay bareefad baan soo shaqeeyay kulli dakhli doomayaa oo sheegay dakhli badan waa la helin farsamo badan waa la helin insha Allah waxaan leeyahay ilaahay xilka ay waasturo in badan baan wada joognaa wax badan baynu bedeli doonaa waxaan leeyahay inagu oo wada jira mid gobol mid degmo mid bulsho dhammaanteen aan wanaagga iyo horumarka degmada isu qabsano ilaahna wuu inoo fududaynayaa wixii rag ku talagalo dumarna garab galaan rabbiga aqbalo ilaahay wuu nagu garabgelayaa aan gacanta qodobkeena sideedaad ku soo qaadan doono barnaamijkeena dhacdooyinka gobolka Awdal sanadka 2013 ka dhacay ayaa waxa uu yahay furitaanka idaacad FM Quraanka Kariimka laga dhageysto markay ahayd 16 November 2013 ayaa waxa magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal laga hirgeliyay FM Quraanka Kariimka laga dhageysto 24 saacadood iyadoo FM tan ay fulisay wasaaradda warfaafinta qankii wacyigelinta Soomaaliland oo kaashanaysa wasaaradda diinta iyo qaabta Soomaaliland iyadoo ujeedada loo sameeyay FM ta Quraanka ay ahayd sidii ay dadka reer Awdal ay uga faa'iideysan lahaayeen waxaan rajaynayaa in barnaamijyada kale ee diiniga ah hadday tafsiirka tahay hadday sunnada rasuulka tahay hadday inay dhammaan siiradii nebiga inay idaacaddaasi ay noqon doonto mid inaga kaafila waxaan jecelahay inaynu masixgelino dadkana aynu ku dhiirigelino ku baraarujino inaynu idaacadda quraanka kariimka ah aynu fidinno markii labaad waddankani noqdana
شرفت المجتمع في السنة المتحي دين شعيل هي دقن شعيل هي إسلام شعيل أي سنة المتحي هي نبض شعيل. إذا عرضنا أنت خيتي وأفضل ما تنسعه وهذا كلنا ويجالس إن شاء الله تعالى وقبل شيء سنة مصوصة وهذه السنة إني نقارنه إني نعطبنا كريكا qodobka sagaalaad ee barnaamijkan ugu soo qaadan doonaayo waxa uu yahay taalaan ka dhacday magaalada Boorama markii ay bishu ahay 8 December 2013 waxa magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal ka dhacday taalaan iyadoo maalintaas ay magaalada Boorama ay ahayd mid xiiso badan oo aad la kulmayso arrimo badan iyadoo aad arkaysay bulshada oo gadoodsan wadooyinka halbowlaha waa magaalada Boorama waxaan maanta farxad weyn oo aan magaalada shaadku ka maqan yahay waad arkaysaa suuqu siduu camiran yahay iyo dadku sida u socdaan hawlaha ganacsiga sida u socdaan afar cisho kaliya hadduu maqnaan lahaa wax laga yaabi lahaa inay dad badan taanjiri lahaayeen oo ay ganacsiga ka taanjiri lahaayeen anigu waxaan ka sii naxayba ma imanayada la yidhi jaab laakiin sidaa haddii lagu daayo waxbaan iska qabsan lahayn oo ma ka raysan lahayn xagga dhaqaaliga xagga kale laakiin soorta maanta dhiigii una fadhiistay baan laakiin waxyaabaha dadka Soomaaliyeed dibta u keena jaadka ka koowa walaalaha markay rabku shaqo beelana wuxuu ku keenaa maskaxdiisa dhibaato jaadku waa qayb daroogada kamid ah dadka Soomaaliyeedna dhaqaalaha ka helnaaba yiraan haddii dadku wax waayo ha u badasho haruun ama ha u badasho waxyaabo kale oo dadka gudihiisa laga isticmaalo qodobkeena ugu dambeeyaan ku soo qaadan doono barnaamijkeena dhacdooyinkii واونا إلا بعد كونه صدق حتى كدعي قبل كان أودل وحوياي مسؤولين تياري أودل استيدو لغسو دوياي مقالة بورما حكومة الصومالي لان أيا وحي كوكوليسيتي إني وضع هذا لايلاي لطو مسؤولين تديبا دوريقا أودل استيديو قوائد وضع هذا الكاسو نقضي مدمر دالا هذا باه مركي تاريختو هاي 8 ديسمبر لبعد كونه صدق حتى أيا وحي مقالة بورما حرونتو قبل كاودل لغسو دوياي مسؤولين تياري مامو كديبا دوريقا أودل استيد هذا كان نقضي موقف كي الصومالي وين سامر كان noqday Somaliland iyagoo laga hortagay degmada dilay ka tirsan gobolkani Awdal iyadoo mas'uuliyiinta soo dhaweynteeda ay ka qayb qaateen madaxda heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Awdal iyo bulshada kala duwan ee ku nool gobolkani Awdal aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa Rashiid Awnuur iyo waftigiisa ee ku soo guriyay noqday dalkoodii hooyo dadkoodii ku soo noqday qaatay mowqifkii dhabta ahaa Somaliland runtii aad iyo aad baanu ku soo dhaweynaynaa oo aanu leenahay halkaad wax meel kale waxu doonan lahayd cawsina wadana horaane halkaaga kuurane halkaaga wax ka noqo aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaynaa dawlad ahaan shacbi ahaan gobol ahaan intaba waxaanu garannay danta shacabka reer Awdal inay ku jirto danta Somaliland taasaan garannay danta Somaliland waxay ku jirtaa danta shacabka reer Awdal la'aanteed waxaan aaminsanahay Somaliland jiritaankeedu inuu calaamad su'aal galayo waa in walaalayaal ka fantaan waxaan idinku boorinayaa in nabadda laga shaqeeyo horumarka laga shaqeeyo midnimada ummadda laga shaqeeyo taas ayaan taaganay waxaan diyaar u nahay in midnimada iyo horumarka Somaliland sidaan horeba ugu sheegnay saxaafadda أنو كشقينا يدور دمايستيران daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan meel kasto naga daawanaysan xilli kasto baydin hayd waxaan taasi noogu eeg isla markaana aan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeeni xisaab banaan ku eegnay dhacdooyinkii ugu waaweynaa 2013 ee sii dhamaanaya ka dhacay gobolkani Awdal barnaamijka waxay soo diyaar isla markaana isku soo dabariday igina soo qaabeeyay waa aniga wariye Maxamed Xasan Ismaaciil Sharbiyare waxaana si toos ah uga socoteen waa telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV istiidiisa koobaad ku leeyahay gudaha magaalada Boorama haddaba daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan inta barnaamijka ku wada kulmi doono waxaynu ku dhaafayaa sidaas iyo ismaqal aragti dambe oo xiiso leh